الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan u taaganahay ama aan u joognaa ciidan ka kooban 220 askari oo ka yimi Puntland sida ay u hadlayaan bay wixii ay kula soo kulmeen iyaga ka waramay waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maatinka aad ka timaadeen kulli qaar kale oo idinka dambeeyo oo wali waddanka ku sii harsan way jiraan kuwa kale waxaan leenahay walkaalada deegaankii iyo magaaladii uu ka warhayo ciidankaasi markuu la dheere galay 400 buu ahaa soona wurwid iyo eegaag iyo buuhoodda soonihiisa laga qaaday waxaan malaynayaa wax badan meesha kuma harsana waxaad kaga duwan tihiin si habsamiya baad meeshii ay lahayd iyo gobolkii noo soo beegteen in aad qofkuna waayaarkana way fiican tahay waxbaad soo aragteen waxa jiray kuwa idinka ka mid ahaayo iyagu halkaana khalad u tagay markii dambena dhaba khaldan qaaday oo meelalkaas oo saax dheer la yiraahdo marka qofku hadduu mar khaldamo inuu khaladkii sax u noqday haddana khaladkaas si galayo meel saax dheer la yiraahdo aad u tihiin waxa ka jira oo dadka aad iyo aad loogu daabiyay lagu majara habaabiyay waxaan leeyahay 400 bay ahaayeen 150 waa iska kala halowday rag 70 halkaas meel baa looga yeeray dibndaabiye kale lugta la galeen oo tiimiga aad ku caawanaysan maahe mid kale lugta la galeen waa weeye meel aan waa la garan karaa yaa jooga kale waxaan leeyahay markii aynu dhulbahanta sheegano dhulbahanta inuu horumar gaaro oo tashado oo wanaagsanaado waxaan u maleeyahay cidina igama jecla wana wada jecelahay goor muuse gaaraya 14 garaad baan hol yiri waa shiraynaado markaasaan ku niri shira intaan ugu tagi hadda tale saaxdheer garaadada afar intee joogta ormo haysan 14 garaad baa 13 kale meel kale ku hadheen marka 14 markii ay dhamaayeen talada ay soo saari waayeen saaxdheer oo hadda hal garaad loo joogo ayaa maanta tala ka soo baxaysa rag baa ag fadhiyo oo lagu dibindaabiyeenaya oo maalin walba xaraar daayeer iyo bohol afka ka oodan inta dabada lagaga soo shubo la oranayaa ordo oo markay dhaawacmaan iyo markay dhintaan barti lagaga tagaya hooyadii baa tabaysa waxaan leeyahay kuwaasi asxaabtiinii bay ahaayeen u yeedha mar dambe ha ku dhimanina meel cidlaa dhaha waa la jahaadayaa laascaanood mana lila jahaadaya dhulbaantan ku joognaay yaa lala jahaadaya maxaad la jahaadi maaye annagaaba dhulbahanta wanaaggiisa rabnee waxaa lala wareegaalaysanaya adeerayaalow ma aha dan dhulbahante maaha waxaa lagaga cunaa lacago dad dibadaha joogo oo aad iyo aad u dhibaataysan oo TV-ga laga daawisiiyo maantana 50 baanu dilay 20 hunaaba halkaa ku dhintay 2 gaari baanu gubnay lacago badan bay ku soo diray waxaad moodaa meeshu inay dhinac shaqo ka tahay kuwaasi dibindaabiye badan bay waxyaabaha lagu kala tagay ee dhulbahanta markuu taayix joogay ee wax la bilaabay malaayiin buu ahaayay waxaan leeyahay kuwa dibadda joogow lacagtiina la isku hayaa dhulbahanta dibindaabiye lacagtiina ugu filan maxaa lagu kala tagay maxaa lagu kala maqan yahay marka ay 200 oo miga soo direen baa midna cabaasho kala jeebka gashanaya inta kale way xanaaqaysaa way iska tagayaan war hadda dhulbahanta inuu ururo doonaysan lacagtiina ka daayay haddii kale lacagtiina markay soo dhacdo un baa maalinba qola cadhoon idina waxaad u haystaan lacagtiina dhulbahanta ururinayso kuwa dibadana intaasaan leeyahay idinkuna raggii idinka yimi iyo kuwa kale aad xaal asxaabta tihiin iyo kuwa reerkeenna aad istaqaaniin taleex iyo wadabtiin dhibaatooyinka laga sameeyey dalkeenna yaan nabada intaan annagu joognaa nabadkaa dalkeenna taleex waa wadabtiin wax ka yaalla dharkayn iyo saaxdheera wax dhex yaalla wadabtiin marka dhibaato meesha dhibaato laga abuuro ayaa dhulbahantanima jiraysaa annagu intaan joognaa nabada intaan lagu dhaqan yahay intaan dhulbahanta walaal ku yahay intaan midna xariiqi karin dan intaa ka badan ninkii haya uu muuqan lahaa annana waa raaci lahay waxaan leeyahay waxaan maqlayay qoliyaha walaalaha nahay xagga bariga naga jira bariyahan rasaas iyo
أي ساحدير كيني وعن ليه هاي قليهانا والرصاص تاسي اللي يكروا عن وجبة باهي بدنين نومي يمشينه عن بدنين وأفر يتبن جراديو تقرب باشي اللي وريتي تلاقيه ما أنتوا عن يوم إيش اللي جت شوق برصاص كيني عن ليه هاي قليها ولا لا هينا ويرنين باكو ما يبقى ليدي والأولاد عانى يمتوا إنه ضرن وهذا كده بعانى وكي أنا كفلين والأولاد عانى يمتوا وسجلنا بالدورشان باك كده عيب ورصاص تهرب أنا لما سيمتلنا مركان بدنين سود دمين والله صح دير ما أنا نوبر دمين محا رصاص تنلوجو كينيا ولا هي لو كينيا كانوا وحلاها هاي ملاها واحد لسليه حرقوف يربا كشرتي صح دير إيو برجع صح ديره ملاها واحد لسليه ينقلها ما أنت هادون بطوء وما بدنا هلا فيني ويتبرر تاجنا قلق أنا قلت واحد بدنا بنفاسنا تذكر يقولوا نتمرر بنو ساحدير اللي قلت له يلا أنا اللي قلت أنت مرة بنو هلا هاي waxa ay dhageysanaya meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa Erbante warninkii dan hayo hala wareegaysana ana kugu raacayo ugu horeeyay adeero danta xaqarina la kaalay hadan dandaradaada kugu raaci waayo matuugtu dhalay baan noqonaya Erbante diid baan noqonaya wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh maana raxim horta marka hore aan aad iyo aad u mahadnaqayaa ciidankan ka yimi dhinaca Puntland ee ku soo biiray ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay inay ka mid yihiin Soomaaliland yaani Puntland ahayn ee Soomaaliland yihiin gartay aad iyo aad marka hore ugu mahadnaqayaa waa soo dhaweynaynaa gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa imka laga bilaabo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ugu soo biireen ayaa uga mid noqonaysaan waxa aragtaan sida idinku muruxsantihiin marka dilaysaantiina leedin eego dhammaantiin koofiyad ma sidataan dirajo ma sidataan ciidanka kale Soomaaliland ma halkan tuban dhammaan waxay wada sitaan diriskiina ka qurux badan muuqaal ahaan waxaad moodaa in idinka guuran yihiin dirajay wada xidhan yihiin waa dawladnimada waxay muujinaysaa inaa markii hore waxay idinka maqnaayeen waa heli doontaan waxyaabaha taas oo kale ciidanka kala mid noqon doontaan haddii la ka dhigo sharafti iyo darajo iyo muuqaalba waa ka mid noqon doontaan way heli doontaan haddii baydmo ma aha markii ugu horeysay ee Soomaaliland ay ku soo biiraan ciidamo ka yimi Puntland ama kuwa dadka khalda ee khaatumo bixiyay markii horeysay ka yimaadaan ku soo biiraan halkan ma aha kuwii idinka soo horeeyay hadda kuwa halkan dhinacyada taagan bay ka mid yihiin darajadana xidhanahay mid la maday bay xidhan yihiin aqoon baa u korodhay way aragnimo u korodhay taas ay idinku heegsan doontaan haddii barnaamij ka noqdo sida daraadeed kuwii idinka soo horeeyay baa la mid noqon doontaan waxa kalaan halkan ka sheegaya Soomaaliland cidna doonamaysa in wax yeelo geysato waxay doonaysaa dadka ku nool gobolada nimaka aynu joogno waxaan doonaynaa Soomaaliland siyaasiyan ciidan ahaan bulsho ahaan in horumar loo sameeyo tacliinta in laga dhiso biyaha loo hormariyo oo biyo macaan ay helaan oo nadiif ah dadku cabo in la helo maxaan ku dhaxday caafimaad la helo oo caafimaadka laftiisa la hormariyo in wadooyinka la hormariyo ma aha ujeedadu in ciidanka qoran la dhiso in bulshada gabahaanba civil society service oo dhan in la dhiso arrimaha bulshada iyo horumarkaba way dalka intiisa kale la mid noqoto taasuna iyaduna mid jirta weeye ciidanku wuxuu hormuud ka yahay amniga iyo horumarka bulshada ay meel kasta ma aha solo kaliya gobolada dalka oo dhan marka laga soo bilaabo gobolka ugu shisheeya ilaa iyo kan imaka aynu joogno ee Soola ciidanku horumar wuxuu ka yahay wuxuu hormuud ka yahay horumarka arrimaha bulshada marka arrimahaas oo dhan baa laga shaqeynayaa haddii barnaamij uu ka noqdo hadalka badankiisii waxa yiri taliyaha qaybta 7aad gaashaanla dhexe mahad cambaashi anuguna intaas baan ku darayaa koore adigu hadal marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim taana waxaan ahayn ciidan reer ceegaaga degmada ceegaa ka tirsan bari dhaweyta laga qaaday ciidankii laac dheera tababarka kaga baxay madaxtooyada Puntland loo tababaray baan ahayn bacdigii waxaan la geeyay tababarkii markuu noo soo xidhmay magaalada Liila Buuro wadal in badan baan halka ku sugnayn imikana iyadaan ka nimi waxyaabo dhowr ah baan kaga nimi marka hore dal aan lahayn iyo dad aan isku shaqo toon ahayn waxba la lahayn baan u tagnay bacdigeed markii dambe waxaanu aragnay in aan waxba meeshan ayna anaga dan noo oolin ka bacdi
waa ka tashanay waxaan u nimid dalkayagii iyo dadkayagii iyo dawladda Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si fiican baa naloo soo dhaweeyay anana waa ku mahadnaqaynaa dalkayagii iyo gurigayagiina waanu nimi kuwa walaalaha iyo iminka naga dambeeya ama se iminka naga hadhayna waxaan leenahay war iskaga soo taga dalaydaan lahayn iyo guri leeyahay kala joogtaan gurigiina kaalaya taa joogtaan guri ninka qabiyaabay ahayd war mid dhameystiran oo aad leedihiin baalkan kaalaya baan leenahay